haddii aad ku xidhan tahay channelkayga fadlan subscribe saar oo ku soo bir mahadsanid. madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu ka baxay wadahadalladii Hargeysa iyo Muqdisho isla markaana taas beddelkeeda uu dhanka Soomaaliya garwadeen uu ka noqon doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi mudane Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la sheegay in muddooyinka dambe uu sii xoojiyay qorshihiisii ahaa wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu dejiyo qorshe cusub oo uu ku waajahayo madaxda Somaliland iyo Soomaaliya sida ay ila xoggaal ah u xaqiijiyeen wargeyska Geeska Afrika oo ah wargeys Soomaaliland ah oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu dhawaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uu ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu soo bandhigay qorshe ah in dhinaca Soomaaliya garwadeen uu ka noqdo wadahadallada iyo qorshaha ay Soomaaliya ku waajahayso Somaliland. taas beddelkeedana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu noqdo marjiciisa. isbeddelkan ayaa la sheegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyay fikir uu qabo oo ah in shacabka reer Somaliland xasaasiyad ay ka qabaan madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la sheegay in uu aqbalay qorshahan, waxaana la sheegay inuu u soo bandhigay madaxda dhalashahan ka soo jeeda Somaliland, balse fikirka midnimada Somaliland iyo Soomaaliya aaminsan ee ka tirsan xukuumaddiisa. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu wararku sheegayaan in uu qorsheeyay in kulanka ugu horeeya magaalada Addis Ababa ku dhex maro madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre dabayaaqada bishan Abriil. laakiin fiitaanka xanuunka COVID-19 ayaa la saadaalinayaa in uu sabab u noqon doono baaqashada kulankan ugu horeeya. wararka qaar ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in wadahadal dhinaca telefoonka uu dhex maray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. geesta kale madaxweyne Biixi ayaa kulan uu toddobaadkii hore madaxtooyada kula qaatay gudoomiyaha golaha guurtida iyo madaxda xisbiyada mucaaridka. waxaa la sheegay inuu si kooban uga warramay qorshaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dabada ka riixayo ee ku saabsan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, waxaana falanqayn kooban kadib la sheegay in madaxweyne Biixi madaxda siyaasadda Somaliland ee uu la kulmay uu sheegay in uu si rasmi ah arrintan ugu warrami doono 10 cisho kadib. waxaa iyaguna toddobaadkan ka hadlay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya qaar ka mid ah salaadiinta Somaliland oo sheegay inay salaadiin ahaan qayb ka noqon doonaan wadahadallada Hargeysa iyo Muqdisho. lama garan karo sababta waqtigan ku soo beegtay hadalka salaadiinta oo aan hore uga hadli jirin wadahadallada labada dal. madaxweyne Biixi ayaa la aaminsan yahay in aanu ku niyad sameyn qorshaha uu wada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. ummadda reer Somaliland ayaa madaxweyne Biixi ka warsugaysa in uu uga warramo arrimaha socda ee uu dabada ka riixayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ay warar xasaasi ah oo kala duwan ay ka soo baxayaan.